shirka maayirada degmooyinka Soomaaliland muddo 3 maalmood uga soconayay magaalada madaxda gobolka Sanaag ee Ceerigaabo ayaa maanta halkaasi lagu soo gabagabeeyay waxaana shirkan ka sokow maayirada dalka iyo wasiirro ka socday xukuumadda Soomaaliland iyaguna xiritaankiisa ka soo qayb galay xubno ka socday ururka dawladaha hoose Afrika kuwaas oo ka soo kicitay waddanka Tansaaniya waxaana ugu dambeyntii munaasabadii xiritaanka shirkan hadal kooban ka soo jeediyay gudoomiyaha ururka maayirada Soomaaliland ahna maayirka caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Ciidi Sotalko kaasoo halka ka sheegay qodobada ay isla qaateen inay dhamaystirteen xeerkii urur ahaan maayirada degmooyinka Soomaaliland ay ku dhaqmi lahaayeen waxaana hadaladiisii ka mid ahaa in 2 kiiloomitir ee Ceerigaabo magaalada gudaheeda ka sameynayso dawladaha hoose $50,000 ka qaataan muxuu ahaa magaalada Sheekh in hal gaariyo loo iibiyo magaalada Laascaanoodna in hal gaariyo loo iibiyo runaantii qorshihiina waa la dhameystiray 4 sanadood iyo constitutionkii waxaanu aad ugu mahadnaqaynaa walaalaha iyaga nagala soo qayb galay Tansaaniya iyo muxuu ahaa dalada East Africa waxaan aad ugu mahadnaqaynaa walaalaha iyaga soo dhaweeyay halkaan shirka ku qabsanay reer Sanaag ha ugu mudnaado maayirka iyo dadkiisa maayirka Ceelaf Weyn maayirka Mayd oo saaka ku socono iyo dhammaan reer Ceerigaabo guud ahaan waxaan leenahay waan xasuusan doonaa si fiicnay ee noo soo dhaweyseen reer Soomaaliland oo dhan $1 oo wadada Ceerigaabo ku tarsantaa waa national issue magaalada walba goonideeda waxa soo socday arrinta qaranka ee madaxweynuhu ku dhawaaqay oo uga mahadnaqayno wadada dheer inay qof waliba wixii ku tarsan karay oo ku tarsado aad baad u mahadsantihiin shirkuna saasuu nagu xidhay si kastaba ha ahaatee shirkan ay tahay markii ugu horeysay maayirada Soomaaliland isugu yimaadeen Ceerigaabo ayaa bulshada halka ku dhaqan iyo guud ahaan Soomaaliland la filayaa inuu noqon doono mid taariikhi ah oo midho dhal noqon doona